kula wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii xog warniyo maanta waa maalmo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha 9 sanadka 2020 qodobada wararka warkeena koowaad maanta inuu haynana waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo saxiixay 13 kursi ee gobolka Banaadir kusimaha ra'iisul wasaaraha oo la kulmay laamaha amniga Soomaaliya duqa Muqdisho oo albaabada ka xirtay qaar kamid ah mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir xeeralyaha guud ee qaranka oo digniin culus tuldhigay hay'adaha dawladda Mareykanka oo sheegay inuu soo celinta amniga Soomaaliya uu ku bixiyay lacag ka badan $5 milyan ra'iisul wasaare cusub oo loo magacaabay dalka Lubnaan kuna soo beegmay booqashada madaxweynaha Faransiiska oo ku joogo dalkaasi iyo dawladda Suudaan iyo mucaaradka dalkaasi oo kala saxiixday heshiis nabadeed qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal barnaamijkeena inta aanu ku jirno aad uga bogan doontaan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka gambalkan riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la sheegay inuu dhawaan saxiixi doono 13 kursi ee gobolka Banaadir laga siiyay aqalka sare ee baarlamaanka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu shaaciyay in dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixi doono matalaadda gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen in gudoomiyaha Cumar Filish uu ku dhawaajiyay in madaxweynuhu uu dhawaan saxiixayo 13 kursi ee aqalka sare loogu daray gobolka Banaadir xildhibaanada golaha shacabka ayaa hore u meelmariyay 13 kursi ee golaha aqalka sare laga siinayo gobolka Banaadir madaxweynaha ayaa hore u dalbaday in Muqdisho matalaad iyo maqaam ay ka hesho hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu aad u soo dhaweeyay markii baarlamaanku meelmariyay kuraasta laga siiyay aqalka sare gobolka Banaadir kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuled Khadar ayaa kulan waxa uu la qaaday madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaanka ciidamada qaranka kulankan oo goobjoog ay ahaayeen wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe taliyaha ciidanka xoogga dalka General Oduwa Yusuf Raage iyo qaar ka mid ah saraakiisha hoggaanka qaybaha dalka ayaa waxa looga hadlay dardargelinta iyo dhameystirka dib u habeynta ciidamada qalabka sida gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa la sheegay inuu albaabada ka xirtay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir wada shaqeyn xumo iyo iska warqab la'aan ayaa soo kala dhex gashay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka Muqdisho sida ay sheegayaan ilo walaadiyada uu kalsoon yahay arrintan ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay ka dhalatay kadib markii gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish uu albaabada ka xirtay inta badan gudoomiyaasha degmooyinka ayadoo arrintan ay curyaamisay howlihii shaqo ee maamulka gobolka Banaadir uu ka waday caasimadda dalka qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka Muqdisho oo magacooda ka gaabsaday ayaa waxa ay sheegeen inay dhibaato xooggan ay ku qabaan la kulanka gudoomiyaha Cumar Filish marka ay ugu tagaan xarunta dawladda hoose kadib markii uu xoghayntiisa gaarka ah ku amray inaysan cidna soo gudbin karin dhowr gudoomiye degmo oo kaliya ayaa loo ogol yahay inay la kulmaan Cumar Filish kuwaas oo isaga la xiriir gaar ah ma garanayno sababta kuwa kale aan loola kulmayn ayuu yiri mid ka mid ah howlwadeenada ka tirsan xarunta dawladda hoose ee Muqdisho xeeralyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo shirshiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay baaris lagu sameeyay kiisas musuqmaasuq oo markii hore ka bilowday wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada kadibna lugaha la galay wasaarado iyo hay'ado kale oo dawladeed ganacsato shirkado si gaar ah loo leeyahay taasoo dhawaan xukuno kala duwan ay ku ritay maxkamadda gobolka Banaadir xeeralyaha guud ayaa waxa uu sheegay in inta baaritaanku uu socday in fatashaad lagu sameeyay xarumo dawladeed oo kala duwan oo ay ku jiraan wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda warfaafinta xafiiska xisaabiyaha guud hay'ado gaar loo leeyahay shirkado dhismo xarumo ganacsi sida hoteelo makhaayado cunno xarumo daabacadeed iyo meel kasta oo laga heli karo xogta uu daba socday xafiiska xeeralyaha guud ee qaranka si loo gaaro ujeedooyinka iyo natiijada baarista xeeralyaha guud ee qaranka ayaa intaasi kadib waxa uu digniin u diray wasiirada dawladda agaasimayaasha guud ee wasaaradaha agaasimayaasha maamulka iyo maaliyadda bankiyada ganacsiga xawaaladaha iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan banka dhexe ee Soomaaliya kuwaas oo uu sheegay inay qadan doonaan dayacad kasta oo ku timaata xafiisyada ay mas'uulka ka yihiin
si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo xeerka maaliyadeed dalka. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay ku bixisay lacag gaaraysa 5.3 milyan soo celinta amniga iyo kala dambeynta Soomaaliya 20 sano ee la soo dhaafay, isla markaana aan wax natiijo ah aysan ka soo bixinin. Kusimaha safiirka Mareykanka ayaa waxa uu hadalkani ka horjeediyay golaha ammaanka iyadoona tilmaamtay in lacagta faraha badan iyo natiijooyinka ka soo baxa Soomaaliya aysan haba yaraatay isku dhigmin. Mareykanka ayaa waxa uu walaac xooggan ka muujiyay lacagaha cashuurta ee la siiyo Al-Shabaab, isagoona tusaale u soo qaatay weerarkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotel Aliid, sheegayna in dhaqaalaha weerarkaasi lagu abaabulay uu yahay cashuurta Shabaab ay ka qaadaan xarumaha ganacsiga. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sii wada tababarada ciidamada Soomaaliya iyo howlgallada duqeymaha cirka ee sanadkan 2020. Taliska Mareykanka Africom waxa uu qaaday 46 weerar oo cirka si loo yareeyo khatarta Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin ilaa 5,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Ra'iisul Wasaare cusub ayaa waxaa loo magacaabay dalka Lubnaan, waxaana ku soo beegmay xilli dalkaasi uu booqasho ku joogo madaxweynaha dalka Faransiiska. Mustafa Adib oo 48 sano jir ah ayaa waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Lubnaan, kaas oo hore u soo noqday safiirka dalka Jarmalka. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu bilaabo dib u habeynta ay dalbadeen bulshada dalkaasi, isla markaana uu soo dhisi doono koox wasiiro oo khubaro ah. Hawshiisa ugu horeysay ayaa waxaa la filayaa inuu ka dhigo dib u habeynta iyo inuu heshiis la gaaro hay'adaha lacagta adduunka ee IMF. Kooxaha mucaaradka ayaa waxay taageero muujiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa booqday Lubnaan markii 20 iyo markii qaraxii dhimashada badnaa uu ka dhacay dekedda magaalada Beirut bishii August 4. Ugu yaraan 190 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, in ka badan 6,000 oo qof ayaana ku dhaawacmay, halka ku dhawaad 300,000 oo qofna ay guryo la'aan ku dhacday. Weli waxaa nagala socotaan warbaahinta xog waran. Wararkeena kalena waxaa ka mid ah dowladda Suudaan iyo mucaaradka dalkaasi ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis nabadeed. Dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan ayaa heshiis nabadeed waxay la saxiixatay kooxaha mucaaradka. Heshiiskaasi oo ka dhacay xaflad lagu qabtay dalka dariska ah ee Suudaanta Koonfureed. Heshiiskan ayaa waxaa la sheegay in lagu gol leeyahay soo afjaridda dagaal 17 sano ee u dambeeyay ka socday gobolka Darfur iyo gobolada koonfureed ee dalka Suudaan. Waa tallaabo muhiim ah oo hore loo qaaday soo afjaridda